وقرين وسلام يحلمنا نقولها بعسلان ما أنت ألقى حقوق من شركة جرايد شركة جرايد ونوها لأنه الرماء أفر إلى 20 ساعة قدام سي سوشيال ميديا سوى إنه هيستي كواس أودلي هذا حين أظفر بدن من البدن نجادي أرنتاس وأن رانتي آديات وحنا هاي ونعم بارين إنه وحي الشركة دعيد ماذا دهر وأنا هين لوي قارئ دهرات وهين جريدات نبضات وهين جريدات آديات وجعل دور النمذا يهرو مركا آديات وتاجرة هين جري وحي الشركة دعي دهر ما هو حنكفرحنا مركا لبا قضب وكلا قاضي رانتي مركا أنكور ريو قضب كيها إن بوليس قضب وكعان وأنه إن بدن وحويان أن كهو قلي أما سأسكت إني وحويان سدا لقدايو ما يسندعين وحويان شلي وأدبن وحنا هاي إنه يوين يوحويان ده الشعب ومظاهرات هاي لو أديك سدي حبضنا نول رانتي تاسونو حياتنا أن أدياد وحنا هاي sidoo kale to shacabka iyaguna mudaharaad ayina iyaguna xuquuq waxaan wanaagsanayn arintana waan ka xunahay anagu hadaan nahay maamulka degmada Dhahar waxaan nahay maamul Puntland waa Soomaaliya anagu kama soo horjeedno horumarka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed ay wax weyn ku dhaqaaqayso anagu kama soo horjeedno waxaan u taaganahay inaan ka shaqeyno sidoo wax weyn Soomaaliya horumar gaar lahayd umma Soomaaliyeed baan nahay Soomaaliyana waxa way midnimadeeda iyo wanaageeda iyo quruxdeeda ayaan jecelahay waxa ka muuqanaysay shalay waxa way shacabku inay u arkayeen waxa way maamulka degmada iyo gobolka iyo waxa way ciidamadii booliska haaba in waxa weeyaan ay yihiin dad qaran dumisa ay yihiin dad soo dirsaday ay yihiin waxa way dad aan ka shaqeyneen horumarka iyo waxa wanaaga ummadda Soomaaliyeed inay aysan ka shaqeyneen laakiin sida maaha booliskana waxaanu ku cambaaraynaynaa waanu aad iyo aad uga anxunahay in waxa weeyaan shacabka waxa weeyaan loo dhifin karay oo waxa si kale wax loogu sheegi karay waxaan loo qaboojin karay waxa weeyaan baa wanaagsanayd laakiin taasina ma aysan dhicin waxa weeyaan dad shacab oo kacsan oo xamaasadaysan oo waxa weeyaan hadana loo adeegsaday xabad waxa nool aad iyo aad baan uga xunahay runtii waxaan shacabka reer Dhahar doonayaan ugu baaqo inay ka shaqeeyaan horumarka degmada ayna waxa way hantideena guud iyo waxa way waxa inaga wada dhaxeeya oo waxaan reer Dhahar wada leeyihiin aysan ahayn wax si gooni ah waxa maamulku u leeyahay aan ahayn ee waxa way hantidu tahay waxa weeyaan saldhigyada iyo waxa xarumaha dawladda hoose iyo waxa way maamulnimaduba dawladdu ay waxa way ay inaga wada dhaxayso laakiin uusan qofka marka jigada jooga aysan ahayn wuxuu gooni u leeyahay aysan ahayn baan waxa weeyaan u sheegaynaa dadkuna waxa weeyaan waxaan la shaqeeyaa maamulka degmada oo aan waxa loo bahla gelin maamulka degmada oo aan la oran waxa weeyaan wadada qaanduunsa wadada waxa weeyaan ka soo horjeeda horumarka iyo ummadda Soomaaliyeed waa dad ku shaqeysanaya aragti gooniya inaan la oran baan shacabka rajeynaa shacabkuna istijiyaaniin oo waxa weeyaan ka shaqeeyaan horumarka deegaanka iyo sidoo waxa weeyaan ay Dhahari hore ugu talaabsan lahayd oo horumar u gaar lahayd waxa weeyaan in wax laga shaqeeyo aad iyo aad u muhiim ah oo aad iyo aad u wanaagsan laakiin waxa weeyaan aan maamulka degmada loo arag inuu yahay waxa maamul ka soo horjeeda waxa weeyaan horumarkii iyo nidaamkii dawliga ahaa sidoo kale to waxa weeyaan shacabkeena aysan waxa weeyaan aysan ka hor iman dawladnimadii iyo waxa nasteexadii iyo waxa horumarkii deegaanka loo waday inahaas waxaan doonayaa inaan ugu baaqo shacabka reer Dhahareed arintana iyadana waxaanu cadeynaynaa inaan ka bixinay boorajis aysan ahayn arrin wanaagsan arintii hooyinka loola kacay iyo waxa xabadiina aysan ahayn arrin waxa weeyaan aad iyo aad ku wanaagsan nidaamka dawliga iyo waxa maamulkaba ku wanaagsan aysan ahayn aad iyo baan noogu xunaa wixii shalay dhacay waxaanu ku dadaalaynaa inaysan dib dambeeto aysan u dhicin arrimahaas oo kale oo aan u soo noqon waxa weeyaan u midoobi lahaayeen shacabka iyo waxa maamulka degmada iyo gobolku ay u midoobi lahaayeen gacmaha la soo qabsan lahaa laga shaqeyn lahaa sidoo horumar loo gaar lahaa intaas waxa rajeynaya inaan ka shaqeyno aad iyo